kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idin lahaantiinba ku soo dhawaada xubintii dood wadaag oo aad ka dhageysataan Star FM codka gobolka Waqooyi Bari habeen walba isniin ay sii baxayso talaadana ay soo galayso anigoo Faysal Bishaar Faysal Liigo ayaana dooda caawa idin la socodsiin doona hadduu Ilaahay idmo. doodeena caawa waxay ku saabsan tahay dhageystayaal burburka qoyska oo waayadan dambe sabab u noqday baraha bulshada. dooda waxa ay gala qayb qaadanaya Cabdi Daahir Gaas iyo Miski Maxamed Caate oo labaduba ah wariyaal madax banaan wax badanna ka og arrimaha bulshada iyo qoyska. dooda waxaan ku bilaabayaa Cabdi Daahir Gaas. waniga wallahi waxyaabo badan baa u soo noqday anigu waxaan u soo taagnaa reer isku furay Facebook reer dhan oo laba caruur isku dhalay Facebook isku furay haddana maalmahan dambe dumarkii dhamaa waxay ku mashquulsan yihiin Facebook adigu naagad qabsid guriga timi tusaale ahaan waxaad inaad nasatid waxaad leedahay walaal ii keen bulshada ama cunto ii samee chat baan ku jiraa walaashay baan la hadlayaa eedadii baan la hadlayaa horta dumarka khaldan dumarka waxay u isticmaalaan misunderstood inay u isticmaalaan social media adiga nin ragaatay naagta aqabtid markay Facebook iyo Twitter maxaa la dhahaa Instagram iyo WhatsApp ay wada isticmaalayso cid ay kala hadlayso ma ogid adiga naflay baatay masayr ku galaya anigu waxaan isleeyahay social media dib weyn buu keenay qoyska dhanka sabaato dhanka ragga iyo dhanka dumarka inkastoo hadda dumarkii ay u bateen wax oo careless wife way adiga qof aan xaaska qabtid waxa waajib ah inay ku daryeesho because the jannadii cadaabteedu lagu haday ku jira inay ku adeecdo adiga weey kuma adeecayso waxa laga yaabaa inay tiraahdo maanta Snapchat ka sida ka shidan tahay Instagram ka video dhigaya maana ku qabanaysa social media horta naagta qaba taas waa in la kala saaro ama runta loo sheego la dhahaa horta maana ku qabanaysa Facebook iyo social media ku qaba dumarka Soomaaliyeed ada dadka oo dibadda jira tusaalahan fiiri wadamada reer galbeedka Mareykanka jira most of them single mother maxaa ka dhigay single mother raggoodi maxay ku kala tageen waa Snapchat iyo Instagram iyo Facebook taasay ku kala tageen aad u maasanta ku soo laaban doona miski adiga sidoo u aragtay Cabdi Daahir oo arkaysa aad u mahadsantahay Faysal Bishaar Faysal Liigo falanqaynta ay noo sameysay hadii aan wax yar ka dhaha burburka qoyska ee keenay social media ani waxaan isleeyahay walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay dhowr qodob oo maseerka uu kamid yahay iyo single mother ka ah dumarka qurbaha joogo horta maseerka oo la wada siman yahay ragga ayaga naftinkooda ma ahan maxay ahayd in aysan social media gelin online ay yihiin 24 hours markii nin naag qabo markuu isna online yahay maxay ahayd qaybtiisa uu ka qaadanay because ayadana online ha ahaato oo horta cideedu way daryeeshaa oo islaan cideedu daryeeleen ana ma garan karo ma garan karto noocaas inay jirto laakiin muhiimadda aimka waxa waay dumarka inay cidahooda daryeelaan kaalin muglan ay ka qaataan laf dhabarna u yihiin bulshada Soomaaliyeed markii aan u soo laabto masayrka isaga naftinkiisa online uu yahay social media inna isticmaalin ma jirto maanta casri dunia casri aan joognaa ragga geeskooda ka isticmaalaan asaga oo islaam qabo oo asba dhowr qof ka shukaansada haddii aan soo qaato rag badan waxa arkaysaa maalin walba ay u taayeen khilaaf xaafadooda ka dhex jiro sababtoo waxay soo arkaysaa maxay tooy ninkeedii oo naakal message u diray ninkeedii telefonkiisa deebaarto oo naakal uu leeyahay walaal maxay tooy naakal ma qabo oo aadaan ku jecelahay kana yahay marka waxaan u maleynayaa ragga naftinkooda kaalintooda ayay ka qaataan burburka qoyska ee ku saabsan maxay tooy baraha bulshada waa inay 24 hours naaga kala hadlayaan waa inay naaga ay ka barteen social media qadka ay ka barteen afrikaynta ay maadaan ay ku guursadaan dumarka halka joogo markii ogaadaan ay ka tagaan ay isfuraan burburka qoyska waxa u maleynayaa labada dhinac uu ka jira laakiin ragga ha u badnaadaan caqabada ugu badan intaas ayaan uga baxaya ma santahay Cabdi Daahir hadan ku soo laabto wehel la'aanta ayaa keeni karaan baraha bulshada markuu ninka saaka gurigiisa ka baxay oo shaqo aaday waqti ay isu weeyeen xaaskiisa way kalmaqin shaqaya maadaama kala fogeysan dhig karnaa markuu guriga imaado habeenkii wehelaan ayaa ku dhacday xaaskiisi waxay u baahan tahay xaaska in loo sheekeeyo ama waqti isla qaataan ama waxay marka inta ay ku mashquuli lahayd waxyaabo kale oo isaga soo fadhiisto oo isu sheekeeyaan marka ma dhihi karnaa inta ku maqneed saaka shaqada lagu garaabay shaqada aad ku maqneedba marka xaafadda inta aad joogtid idinka ahaan rag ahaan hadii la dhaha waxay waqti ku qaataan oo ay waqti geliyaan baraha bulshada
طيب maxaa kale leeyahay waniyo wallahi horta gabadha wala shay mina ma sha Allah aad baan soo dhaweynaya miski hadda waxay ka dhawaajisay in raggu minaha ay challenge-ga wadaan ama caqabadaha reeru isku furaan ay keenaan laakiin taas ma aha tusaale ahaan hadda wada Ingiriiska kale waxa la maalinta research ay sameeyeen Channel 4 waa taqaana waxa la ogaaday Somali lady inay yihiin adu almost 75% inay yihiin single mother why maxaa ka dhigay sababtu waxay tahay ninkoodii ma maqlayaan dibadda hadii aad horta mina diin iyo dhaqan kala tagay waxay aaminsan yihiin western culture-ka dhaqankii reer galbeedka iyo diin haba sheeginba waxaasay aaminsan yihiin anigu waxaan is oran lahaa ama fikirkaygu yahay dumarkiiba waxay noqdeen tusaalahan shaqaad aaday maanta dhan baad beri soo dhicinaysa iyada inay caruurtii guriga joogto daryeesho Soomaa caruurtii haba daryeeshee adoo daalan baa tibi waad qabaysatay waad seexatay ma sha Allah ma seexatay ma seexan isku daa TV-ga sir daawo naagti mina meeshay ku soo dhawaan la xabiibi ii waraseetay shaqadii iga waran waxyaabi waxayba kula gelaysaa hawl kale iyo burburooyin kale iyo mina dib kale kugu abuuraysa adigoo awalba maskaxdaadii oo mina full ahayd bay qaylo kugu furaysaa tusaalaha dad ba shaqay inaga dhaxaysa laga yaabaa inay qaar dumar yihiin tii ku soo wacdile no naag baad ila guursanaysa haddana gabadha naagaha dumarka Soomaaliya hal mid bay qaban markay hal cunug ku dhasho ma ku dhashaba sanadka kale waxaad arkaysaa masayr joogto ah anwani hada ku sheegay Nairobi ku arkay xiriyaha qoonjigana ku arkay dad social media isku furay maxaa ka keenay minaha dhanka dumarka marka ay hal cunug dhalaan minaha daryeelka ay ninkooda siin jiray way ilaawaan ninkoodii minaha waxa la dhaynaaga wax ku maama naagti ninkeeda ilaashan weey waloo naag kala u ilaalina Soomaa caqabada ugu weyn ee haysata ragga Soomaaliyeed oo dumarka ay qabeen ba marka ay cunug u dhalaan way ilaawiyeen cunugooda way ku mashquuleen ninkiiba daaqada laga saaray xaajigiina deeli baasama cunug kara waa inuu bariis iyo saldaata raadsada waa inuu meelaha ka dhaca mustaqbal laga baxaya adag ma santa hadii miski ku soo laabto soo dhaweyn la'aan oo ninka xaaskiisa kala kulmaya jirta markuu ninka maanta dhan uu shaqo ku maqnaa markuu xaafada yimaado ama martina la socota laga yaabo maadaama marti badan ay soo raaci karaan martida la timaada in ninka soo dhaweyn fiican u helaynin inuu asagoo maanta dhan shaqo ku maqnaa inuu biilo si kuleynaynin la adeecina markiisa marar qaar inuu waxyaabo diro oo laga yaabo oo baraha bulshada iskigu jirta inta soo marayda loo yeerayo dumarka oo xaafadan joogan marka maxaa ka dhileed Faisal aligo horta waxaan anigu soo joogay ama u soo taagnaa caqabada hadda ka hadlaysid ee soo dhaweyn u helin soo dhaweyn waxaad heli kartaa marka adiga xaaskaada adeec ninka kale in la adeeco meeshaan ay nin waa la soo imaaday sax waa dad isqab midka kale inuu hagaajiyo wax wanaagsan oo mid walba uu adeeco laakiin ana hadda ay adeeco si aan ku adeeci meeshaas burbura ka imaanay so marka anigu waxaan u soo taagnaa maxay ahayd arinta social media hadda maanta isku dagaalno oo maxay ahayd aan kugu arko adoo naag kale u sheekeenayo ama maxay tooy naag kale aan kaaga sheekisanayo aan kugu arka messageedeedii adoo le naag ma qabo adaan ku rabaa adaan ku jecelahay adaan ka ku yeelay ama ano ay qabtin naag ad social media ku bartay dahab u gadid seen u soo dhaweyn dadka aad sheegis ilaa cilaaqaad banagama dhaxeeyo marka waxaan u maleynayaa ragga naftinkooda sababaha keenayo in aan la soo dhaweyn qayb ka qaataan because ana Nairobi dan waxa u taagnaa gabar sidaas oo kala ah oo maxay ahayd soo dhaweynta aan keenin laakiin maxay ku keeni weysay ninkeedii oo naag kala bartay naag idida dahab u gadi waayeen oo ninka naag kala u gado social media Facebook ku bartay so ana hadda naag kala maanta Facebook aad ku bartay dahab u gadaysa ana hadi ma awoodi seen kugu soo dhaweyn seed marxaba iyo soo dhaweyn iyo kalgacayl adiga helaysa marka waxaan u maleynayaa caqabada ugu weyn ana waxaan leeyahay ragga hadda gabar mar walba qalbi jilicsan tahay hadii ay adiga kalgacayl maxaba ka aragta maxay soo dhaweyneen ehelkaadi soo dhaweyn adigay ku soo dhaweyn mar walba waxaan u maleynayaa meesha xaafad romantic bay ka jiri kartaa laakiin hadda adigii ba rabtid in ayada qiyaantid sanad ka hor aad soo guursatay maanta naag kale aad social media ku baranaysid ma u maleyn karo intaas aan uga baxaya isla midka sheekada kugu soo laabanay wiilada wato daryeelka caruurta oo meesha ka baxo oo lagaga mashquulo baraha bulshada ayaa dhici karta waxa laga yaabaa caruurta inay xafaayad maanta dhan ay xirnaayeen wax ka bedel ay weeyaan adigina la fahantiin dumarka dhan badankooda andhahna ay iskiga mashquulaan baraha bulshada markuu caruurtii way oynayaan waxa laga yaabaa inay masaasada iskiga jirtaa wax sii weeyaan ay waayaan ama daryeel la'aan meesha ka jirta marka eedaynta maxaa ka dhigi kartaa kullee ana horta ma arag maxay heetoy dad ma u maleynay hooyo cunug ay dhashay lagu jeexjeexay inay daryeel la'aan ka helayso haday daryeel la'aan ka heshana waa mar aabihii dhala caanihii uu keeni waayay ama mashaqaysto uu noqday ama bare uu bulsho uu ku mashquulay ama naag kale uu ka raacay
soo haddaan maanta naaka liga raacdid ama bara bulsho aad ku mashquushid caani ilmaha maanta aad maalinka aad soo dhicin lahayd ama aad ilmaha ilahayn lahayd ee ilaa korin lahayd aad meel kale ka adigtay aniguna stress iyo waxyaabaha loo joogo marka waxaa u maleynayaa wax ka mashquulin kara waa stress maamada hooyada ku furan marka waxaa isleeyahay haddii ragga ay salaamahooda iyo ilmaha ay la korsadaan ma u maleynayo hooyo ilmo lagu jexjeexay inay maxay toy ilmaheeda daryeel la-aan meel cilla uga tagaysa tan kale aan rabay inaan u qaato su-aasha kale ahayd aniga waxaan u taagnaa nin iyo naagas qabo on daris aan nahay laakiin maxaa waaye ninkii wuxuu aadayaa baraha bulshada kaliya maahan caqabada burburka qoyska wuxuu aadayaa banaanka balwad ayuu cunayaa ilmihiisa bambaas wax looga bedelo malaha maamadii waxay samaynaysaa marka in uusan guriga ka halayn darteed waxay samaynaysaa bambaaskii ku daahinaysaa sifa ay bambaaska u kala dheerdheerayso oo ay ugu gaarto marka waxaan u maleynayaa bambaaska ilmaha ee la dayacay waxaa ka mid ah raggii Soomaaliyeed oo ka soo bixaynin waajibkii Ilaahay saaray markaas Ilaahay dana ay leeyihiin maxay tahay afar ba Ilaahay noo banay afar Ilaahay wuxuu ku banaan karaa marka aad ka soo baxayd waajibkii Ilaahay ku saaray ilmaha caanahoodii bambaaskaad iyo quudkay cuni lahayn aad meel saartid intaas ayaan ugu fahmay waxaa kaloo jirta su'aal kale oo ah markii ninkii naagta isguursadaan ay marka hore ku heshiyaan in markay isguursadaan ay sawirro soo dhigin baraha bulshada sifood mid kale lagu maseerin marka dhanka dumarka waxa la dhigi karaa inay amar ka qaadato ay sawirro soo dhigin laakiin ninka ragga ahaa uu soo dhigayo ama wal libis qurxan asoo wada soo dhigayo laakiin marka wax aaskiisa la joogo uu libiska xiranaynin marka maxaa uu sababa taas ma jirto hadda aniga waxaan aqaanaa lamaane sanadka hore isguursadeen hadda waa nin wariyaa maasha Allah u dhaqmaya dee iyadoo sawir bay soo dhigtaa Facebook igu jirtaa ani isla sawir buu soo dhigaa leeskuma mashquulo hawshu way kala socotaa laakiin micnaha ma jiro wax caqabada ah oo reerka soo kala dhex galaya micnaha labada qof hadda si ku heshiyaan weey ninkana isagan iyadaan ogeyn waxa ma soo dhigo taas baa been waana dee propaganda dumarku samaystay weey anaan ku ogeyn inaad wax soo dhigtid no taa maya taas waa diin su'aashaas waa su'aal waa in wax kale lagu fikraa laakiin taas khalad weey ma santahay miska aad waxa ka dhigay su'aasha ayada ani waxaan ka dhigi lahaa marka hore markii la isguursanayo waxa lagu heshiyaa in xitaa line kala jijibiyo oo line cusub la qaato Facebook inaan sawir la soo dhigin in ayada WhatsApp wax soo dhigin asna uu sawir soo dhigin saas ay tahay hadana ragga Soomaaliyeed ayagoo soo dhiga xitaa habla kale aysan u ogoleen dumarkooda waana waxaas burburka keen hadaa aan diidid inaan leen ka hor isticmaal adna kii hor isticmaashin agiya hore ashukaansanaysan aad rabtid inaad wadid ana aad diidid sawir hadaa diidid inaad social media dhan soo dhigo oo adna aad soo dhigaysid xitaa aad ku dareysid naaga kale inaad soo dhigtid de burburka isu iimaanay calaaqad xumida meesha waxay ka iimaanaysaa waxa way wixii hore aad ku heshiisay inaad diidid heshiiska dad ka baxayna khilaaf uu iimaanaya ma santahay ugu dambeyntii Cabdi Daahir Gaas maxaa dhilahayd anigu waxaan dhihi lahaa dumarka Soomaaliyeed horta tan koobaad anigu waxaan leeyahay horta carruurta daryeela carruurta labadiina Ilaahayna siiyay waa minaha waa deeqda Ilaahayna waxa ugu fiican ubadka daryeela labadiina minaha waxa rabtaan isku suubiya cunuga daryeel faa'iido ka bedel cunto fiican si u raaxle minaha afartiisa waqti cuntada si halkaas kaga bixi lahaa ma santahay ugu dambeyntii miski ani waxaan ku boorin lahaa ragga Soomaaliyeed inay maxay ahayd iska daayaan social media too much ka ee burburka qoyska keenaya sidoo kale ragga Soomaaliyeed waxaan ka waani lahaa waxa keenayo burburka qoyska ay kamid tahay balwada sanadka ay noqotay in looga mashquul haweenkii ee waqtiga inay la qaataan looga baahnaa iyo caruurtoodii daryeelkii ay ku lahaayeen waxbarashada ay ku lahaayeen in ay maxay ahayd ka waantoobaan waxyaabahaas ee maxay ahayd ilmahooda iyo xaasaskooda ay dhaqdaan marka waxa la quman inay xaasaskooda waajibaadka Ilaahay saar ay ka soo baxaan ragga Soomaaliyeed total waajibka Ilaahay saar maanta ma hayaan 80% markii la dhac intaas ayaa naga baxay waa maasantiin wala mudan guud ahaanna dhageystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dood wadaag oo caawa ku saabsaneed burburka qoyska oo waayadan dambe sabab u noqday baraha bulshada dooda waxaad ka dhageysanayseen Star FM codka gobolka Waqooyi Bari anigoo Faysal Bishaar Faysal Aligo ayaana idinla socodsiinayay waxaana dood igala qayb qaatay Cabdi Daahir Gaas iyo Miski Maxamed Caate oo labaduba ah wariyaal madax bannaan wax badanna ka og arrimaha bulshada iyo qoyska intaynu dood la mid ah ku kulmi doono toddobaadka soo socdo hadduu Ilaahay idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo